الله الرحمن الرحيم ashirkan maanta waxaan ku baranaynaa kumaandiga loo yaqaano ping. Ping muxuu yahay? Ping waxaa loo isticmaalaa ama lagu cilad bixiyaa a connection between two computers. In connection uu ka dhexeeyo laba computers inuu connection ka dhexeeyo ayaa lagu cilad bixiyaa. Haddiisan connection uusan jirin iyo hadduu jiraba macnaha waa lagu ogaadaa. So marka connection ka dhexeey kara muxuu yahay laba computer. Labada computer connection ka dhexeey kara waxa waaye in ay wadaagaan oo kale faylashii oo kale resourceski inay wadaagaan oo kale printeradii oo kale faylashii oo kale folderadii oo kale in ay maaragtay ay wadaagaan ayaa maaragtay loogu talagalay markay isku xiran yihiin labada computer. Haddiisan isku xirnayn macnaha labada computer aysan xiriir ka dhexeynin that means waxay noqonaysaa connection inuusan meesha jirin oo maaragtay labada computer cilad ay jirto. So marka ciladaas oo maaragtay in labada computer aysan ka dhexeynin xiriir seen ku ogaa karnaa waxaan isticmaalanaa toolkan ping powerful tool waaye dadka maaragtay technicianada ah oo maaragtay IT engineerada ah aad ayay u isticmaalaan command-gan. So command-gan waa powerful tool. So marka isla fiirina bal halkan ayaan imaanayna search bar-ka waxaan ku qoraynaa cmd ayaan ku qoraynaa cmd markaan ku qorno waa kana command prompt ayaa noo soo baxayo kor click ayaan siinaynaa. Markaan click siino waa kana wuu noo soo baxaya marka markuu page-kan noo soo baxo marka hore intaadan maaragtay ping command-ka aadan isticmaalin waxaa u baahan tahay saa hore usoo baranaba ip config inaad isticmaasho command-ga lagu ogaanayo ip address-yada oo maaragtay computer-kaaga ip address-ku leeyahay ama computerada kale ip address-yada ay leeyihiin. So marka ip config wuxuu kaa saacidayaa asaga naftiina asna waa powerful tool oo ay isticmaalaan qoladan IT engineerada ah. Marka adiga naftigaaga dhowdi marka cilad inaad bixisan rabto waa u baahan tahay. Marka waxyaabahan oo dhan waxaa waaye waxaan u baranayna waxay tahay inaan maaragtay ku cilad bixino maadaama anaga hadda aan maaragtay aan rabno inaan noqono computer engineer oo kale. So marka waxaan leenahay ip config ayaan leenahay marka ip address-ki marka ip version 4 192.168.100.91 kaas waa ip address computerkayga uu leeyahay. So marka ip address-ka aa ogaatid ama computerka kale aa rabtid aa ogaatid ip address-ka markaa isticmaasho ip config command-gan la yiraahdo. So marka ip address-kaas ayaa ping ku samaynaysaa marka computer kale ayaa imaanaysaa ip address computerkaas kale aa kasoo ogaatay ayaa ping leedahay. So marka haddii maaragtay connection between two computerskaas ay jiraan labada computer connection hadduu ka jiro so marka waxaan maaragtay ku ogaanaynaa wuxuuna siinayaa reply ayuuna siinayaa macnaha wuu soo fala celinaya wuxuu leeyahay macnaha waa helay hadduusan helin wuxuu leeyahay request maaragtay fail ayuu leeyahay maaragtay wuu diidayaa. Marka bal aan fiirino marka waxaan leenahay ping ping markaa qorto space ayaa leedahay 192.168.100 macnaha intaas same network ayaan ka nahay keyga haddaa fiiriso fiir hadda halkan ujeedaa 192.168.100 waa same network ayaan nahay intaan kale ayaan ku kala duwanaanaynaa marka dot 62 ayaan leenahay 62gan waa mobilekeyga waaye ip address-ka mobilekeyga uu haysto waaye marka waxaan leenahay inter ayaan leenahay inter markaan dhahno reply aanu siinaya haddii ujeedaa marka hore wuxuu yiri host maaragtay bal tan intaa ila fiiriya wuxuu yiri fiiri reply from 192.168 oo computerkan ah destinationka uu u socdo meesha uu u socdo host unreachable ayuu yiri. So markii ugu horreysay aan isticmaalnay waa aan ping aan ku sameyno waay marka labaad marka muxuu sameeyay falcelin ayuu sameeyay fiiri wuu soo falceliyay marka kuma ping koowaad ma uusan gaarin laakiin midda labaad iyo midka saddexaad iyo midka afraad ba uu gaaray markaan fiiri reply from 192.168.100.62 ujeedaa wuxuu leeyahay reply ayaan ka helnay maaragtay wuu nooga soo falceliyay marka hore keyga ayuu u maleynayay cafwan keyga ayuu u maleynayay ujeedaa 191ka ayuu qaatay. So marka dambena wuxuu yiri reply from 192.168.62 oo mobilekeyga ahaa macnaha wuxuu ka helay
informationkan ayuu ka helay maaragta byteka 32 waaye timeka uu ku gaaray ayuu noo sheegaya mujeedaa marka inta kalena waa mujeeda waa macnaha waxaa marka jiro connection ayaa jiro maaragta mobilkeyga iyo maaragtay iyo laptopkeyga hadduusan jirin marka hadda fiiri waxaan sameynaa kale marka ping wax IP address aan jirin oo anaga si oo network aan ku jirin ayaan ping ku sameynaya uu iga diidaya fiiri 192.168.3 oo kale aan iska dhahaa 3 hadda IP address jira maahan marka haddaan iska dhaho oo enter aan dhaho fiiri reply ma isiinayo echo reply ma isiinayo destination unreachable ayuu leeyahay ujeedaa macnaha xiriir kama dhexeeyo macnaha labada computer xiriir kama dhexeeyo waxaan kaloo sameynayaa IP address kalaan fiirinayna hadda meeshaas hadda uu saddexda ka tahay ayaa waxaan flaarta ayaan isticmaalay waxaan leeyahay 7 oo kale ayaan leeyahay wuxuu sameynaya aan fiirina asagana ujeedaa unreachable ujeedaa destination unreachable ujeedaa marka waxaan haddana isticmaalayna IP address kale ayaan fiirinayna marka IP address kale waxaan leenahay 104 oo kale aan iska dhexinaa destination unreachable wax jira macnaha ma jiro macnaha markuu rabo inuu diro wax reply ma helayo ma fahantay marka saas ayaa loo isticmaalaa so marka ping commandiga maaragtay is powerful maaragtay tool waayo oo aad ay u isticmaalaan qolada maaragtay IT engineerada ah so marka cashirkan maanta waxaan ku baranay ping muxuu yahay muxuu noo qabanayaa maxaan ku cilad bixinaynaa so marka maanta waxaan ku baranay ping command ayaan baranay cashirkeena intaas ayaan kusoo koobaynaa wassalaamu calaykum